wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ahna ku siisimaha wasiirka wasaaradda caafimaadka Xasan Daahir Dhimbil oo waraysi gaar ah siinaya telefishinka caalamiga Universal ayaa ka hadlay cudurrada shuman biyoodka oo ka dilaacay qaybo kamid ah deegaano hoos yimaada degmada Wajaale oo sababay inta la og yahay dhimashada laba ruux wasiirku arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisa waxa kamid ahaa haddaan soo noqdo Wajaale runtii dawladda waa meel xuduud u dhow Itoobiya iyo Soomaaliland waan ognahay in dad badan halka xogaa shuban jiro shubankaas wuxuu nooga imanayaa dhinaca Itoobiya waanu ka tacaalaynaa dhibaatada halka taala annagoo waxaan isku daynaa in meelaha biyo fadhiistaan si in hadda waxaan halka jiro ay looga taxadiro meelaha biyo fadhiistaan iyo meelaha qoyaanada laba aanu ilaalino team baan diray waxaan dinay qayb laboratory oo soo baandhaan geynay team baa tagay wadana ka soo noqday waanu la tacaalaynaa waxaan isku daynaa inaan xakamayno shubanka dhinaca kale mar wax ka weydiiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Xasan Daahir Dhimbil dhimashada hooyo iyo gabar yar ay dhashay oo ka dhacday deegaan 8 kiiloomitir u jira magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo nafaqa darro ugu geeriyo deegaankaasi waxa uu ku jawaabay arrinkaas waa jira anagu hadana wasaaradda caafimaadka waxaanu sameynay si aan uga taxadiro waxa soo dhan inaan team ka wareegay oo meel wala iyo goob walba istaago haddii jiro cases ka xogron oo team ka wareeg ka xogron waxay istaan ambalaas waxay istaan baabuur si u soo qaadan oo u keenan xarumaha caafimaadka ee meelaha yaala xarumaha caafimaadka ku xogronada loo keeno isbitaalada gobolada waaweyn sida Burco ama Hargeysa ama Laascaanood iyo inta u dhaxayso ninka ka sameeyay meelo badan sida Caynabo oo kale isbitaal ku leeyahay marka dawladda taxaalina laakiin wixii ajal alla keeno cidii ma joojin karto wasaaradda caafimaadka ayaa kamid ah wasaaradaha sida gaarka ah u qusayso ka shaqeynta deegaanada ay abaaruhu saameynta xoogan ku yeesheen maadaama abaarahaas ay sababeen nafaqa darro dhinaca xoolaha iyo dadkaba Najiib Cabdi Wali Cabdi Xiis telefishinka caalamiga Universal magaalada Hargeysa.